waxaan hadda taaganahay saldhiggii bartamaha xilligaas oo 6 saac saddexdii bishii labaad 2020 waxaan soo marray kormeero badan waan ku samaynaynay guud ahaan amniga istamaashiga shaqada shacabka say u joogaan oo nabad ugu joogaan isbitaalka farmashiyaal dhul badan aan soo marray kulli nabad bay ahaayeen waxaan boqolkiiba boqol u mahadcelinayaa wasiirka hawlaha guud iyo wasiiru dawlaha oo in badan noola kuurgelaya shaqada ay ammaanka iyo ciidamadu hayaan iyo meelaha ay joogaan iyo say u shaqaynayaan aad baan ugu mahadcelinayaa ciidamada iyagana habeen iyo maalin u taagan heeganka iyo amnigana boqolkiiba boqol waa u mahadcelinayaa iyagana shaqada ay ku jireen iyo waajibkay qaadanayeen iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin taasoo allaba jibaadhaan baa laydinka fadhiyaa weli waa hogadii buu yahay kama daale shaqadeennu ma aha mid habeen iyo maalin ku xiran waa mid saacad walba aynu ummadda u shaqaynayno adeegayno adeegayaashii ummadda nahay marka waxaa leena ka rabaa saacad walba inaynu taagannahay shacabka gobolka barina waxaan leeyahay aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii odayaashii iyo haweenkii aan ku soo maray dhulka ugu tagnay oo si wacan noo soo dhaweeyay oo noola hadlayay oo farxadii ka muuqanaysay iyo dawladnimo iyo dal jacayl iyagana waxaan leeyahay saa iyo si ka dhow inay noola shaqeeyaan baan u doonaynaa sharwadayaasha iyo kuwa ku hawlan inay ummadda dhibaan iyaga waxaan u sheegi doonaa gacan bir inaan ku qaban doono meel kastoo ay joogaan iyo meelay marayaan inay naga fikan doonin baan u sheegaynaa inaan saacad walba u taagannahay oo tallaabada ku habboonna ka qaadi doono laakiin guud ahaan gobolka bari waa nabadgelyo wax dhibana kama jiraan aad iyo aad baa u mahadsantihi waxaan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo booliiska gobolka bari oo hogaaminayo taliyaha qaybta booliiska korneyl xuseen runtii aad baan uga mahadcelinaynaa habeen iyo maalin u taagan nabadgelyada dadkiisa shacabka ku nool gobolka bari boosaaso runtii ciidanka waxaan leeyahay hambalyo waxaa laydinka baahan yahay inaad saasoo kale usii laba jibaartaan aad baanu idinka mahadcelinaynaa meediyadana lala socdo halkaasaanu idinka soo tibin doonaa xaaladda boosaaso ay ku sugan tahay xaaladda biliisku ku shaqaynayaan xaaladda dawladdu ku shaqaynayso wasiiradii oo dhan baa kormeer ku jooga oo hadda magaalada howlo badan ka wada meediyadan usoo bandhigaynaa waxaan qarinayna ma leh dadka nabadgelya xumada gobolka ama puntland ka wadana haddee waad aragtaan masadka aan u dirayno insha allah waa soo afjaraynaa insha allah lagumana dhuuman doono xaafadaha iyo beenbeenta iyo maaragtay waxyaalahaas shacabkana waxaan ku adkaynaynaa nabadgelyadu waa muhiim boosaaso waxa weeye waxaa mashaariic badan baa ka bilaaban doona dad badan baa waxay rabaan inay maalgashadaan dawladdu shaqo badan bay ka qabanaysaa mashaariic badan baa loo hayaa waxaa loo baahan yahay si ummadaas oo looga faa'iidaysto oo shaqa la-aantu u baxdo inaad muujisaan shacabka waxaan ka codsanaynaa inay sidaa ay nabadgelyada noola shaqaynayaan ay ka shaqeeyaan inay muujiyaan oo nabadgelyada boosaaso inay tahay meel degan oo laga shaqaysan karo la maalgashan karo ayaanu maaragtay kula talinayna shacabku inay gacan ka geystaan aad baanu uga mahadcelinaynaa shacabka boosaaso gobolka bari sida ay booliiska ula shaqeeyaan sida aanu ugu dhuundaloollo aad baa u mahadsantihiin